tallaalka cusub ee cudurka coronavirus oo loogu magacdaray IRM ayaa laga sameeyaa walxaha xambaara fariin hiddo-wadayaasha unugyada jirka si ay u sameeyaan borotiinno ka hortaga fayraska. tallaalada caadiga ayaa iyaga laga sameeyaa fayraska cudurka oo la dhufaanay, waxaana marka ay u tababaraan awoodda difaaca jirka bini'aadanku inuu aqoonsado walxaha fariin hiddo-wadayaasha uu sameeyo fayrasku mar allaaliya markuu jirka soo galo, waxaana tababarkaasi suurtogeliya in difaaca jirku ka jawaabo weerar walba. haddaba tallaalkan cusub ee IRM ayaa noocan weli dunida horey loo arag, wuxuuna bixinayaa fariin uu u dirayo hiddo-wadayaasha unugyada jirka si loo sameeyo walxo ka hortaga fayraska oo unugyada jirka dhexdooda lagu sameynayo. jirka ayaa isku bedelaya warshad samaysa tallaal. IRM fariimeedka tallaalka koronaha ayaa lagu sameeyaa shaybaarka, waxaana markaa qofka lagu tallaalo ay dhexgelaysaa unugyada jirka, markaasoo fariinta uu xambaarsan yahay ay farayso unugyada jirka inay sameeyaan walxo ka hortaga si gaara coronavirus. mar allaale iyo marka qodxaha taajka ee u egay fayraska coronavirus uu ku caanbaxay soo hujuunta jirka, waa unugyada jirku sameynayaan difaaciyo ka hortaga oo fayraska koronaha ay ku difaacayaan. tallaalka IRM ayaa la sheegay inuu ka ammaan badan yahay tallaalada caadiga ah, iyadoo weliba la sheegay faa'iidada kale inay tahay in si degdega loo diyaarin karo muddo ku siman asbuuciyo si loo shakalo taxanaha fariin hiddo-wadayaasha. waxaa kaloo tallaalkan uu kordhinayaa samaynta unugyo difaac oo isku bedela qaab difaac dheeriya oo kaa ilaaliya in fayraska koronuhu ku nagaado jirkaaga. ilaa iyo hadda lama oga qaabka iyo goorta la gaadhsiinayo tallaalkan IRM qaaradda Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay degto, iyadoo fayraska koronuhu isdhalan gediyey oo laga yaabo inuu saameyn xoog leh ku yeesho Afrika waqtiyada soo socda. waxaase muhiim in dadka Soomaaliyeed istallaalaan haddiiba ay fursad ay u helaan si ay uga badbaadaan halista cudurka coronavirus, iyadoo tallaalkan la sheegay uu u baahan yahay in si weyn loo qaboojiyo. la wadaaga asxaabtaada.